السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ملك السوء جوكتان يسكستا أو آت نودا ونيسان قصدا وقصة حكمة حنبارسن وحنا رجينيا إن دلوعدا مرتدى كدوغان إن أتكالد نحبيح دونتان وعشر نراشا كسابسن أتكبران دونتان نفتيننا أتكودا بقي دونتان هذا با محي كسابسن تاي قصدو أنقودا قلو بريوا وحا ليري maroodi iyo ay ayaa isku marrimay macnaha uur ayay wada qaadeen 3 bilood markii ay ka soo wareegtay ayaa eeyadii ay dhashay oo eeyo fara badan ayay dhashay haddana 6 bilood markii ay ka soo wareegtay ayaa aydii uur kale ay qaaday oo 9 bilood markii la gaarayna ilmo aad u fara badan ayay haddana dhashay sidii si ay u socotay waxa ka soo wareegtay muddo 18 bilood ah markii ay ka soo wareegtay ayay maroodigii u timid eeyadii oo waxa ay ku tiri ma hubtaa in uur aad leedahay waayo aniga adiga xilligii aan uurka wada qaadnay amaba aanu rinnay isku xilli ayay ahaayeen oo muddo 18 bilood ah ayaa ka soo wareegtay aniga 3 bilood kadib caruur baan dhalay 6 bilood kadibna haddana uur baan qaaday oo caruur kalaan dhalay 9 bilood markii la marayay hadda ciyaalkii isku xilligii ama xilligii aan wada rinnay ama uurka aan wada qaadnay marka caloosha galay waa eeyaal waaweyn bay tiri marka ma hubtaa in aad uur leedahay maroodigii ayaa ku qoslay oo wuxuu ugu jawaabay waxaan doonayaa mid in aad fahanto dhagahana si fiican u fur oo dhageyso waxa aan anigu sido ma ahan ee waa maroodi maroodigan marka uu dhasho socodkiisa dhulka ayaa dareema jugtiisa ama culayskiisa marka uu wado goynayana dadka ama bini aadanka ayaa ka istaaga oo daawasho ugu dhaqaaqa ayagoo la yaaban haddaba waxa aan sido waa waxa karaamada iyo sharafta leh ee weyn ee ilaahay weynaanta u dhaliyay ayuu yiri ee ma ahan haddaba dulucda murtidan ku duugan ee aanu ka dhadhansan karno ama aan ka baran karno ayaa waxa ay tahay in qofna uusan ku dhararin naftiisa qof kale waayo qof walba ilaahay ayaa ugu talagalay wadada uu marayo sida uu noqonayo inta uu noolaanayo waxa uu qabsanayo intaba waxa jira dad fara badan oo naftooda barbar dhiga dadyow kale hebel taajir buu noqday maxaan u noqon waayay hebel basaas buu noqday maxaan u noqon waayay maya hebel ilaahay ayaa ugu talagalay wadadaas in uu maro oo wada gaar ah ayuu ilaahay u dajiyay oo u sameeyay adigana sidaas si la mid ah wada ayuu ilaahay ku sameeyay macnaha irsaaqadaada ma laga yaabo qof kale in uu cuno mana laga yaabo adiga qof kale irsaaqadiisa inaad cunto muhiimadda ayaa waxa ay tahay markaa naftaada marnaba ha barbar dhigin amaba ha ku dhararin qof kale isku day in aad kaligaa aad dadaasho oo wadadaada saxda ah ee ilaahay kuu jideeyay oo uu kuugu talagalay in aad raacdo oo aad ka faa'iideysato waad ku mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in dulucda murtidan aad wada fahanteen kana faa'iideysateen page-ka iyo channel-ka Bulqaas Media ayaad nagala socoteen fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo channel-ka Bulqaas Media ha ilaawin in aad subscribe like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday ha naga ilaawin sidoo kale in aad muuqaalkan aad share garayso si dad badan uu u gaaro isla markaana ay uga faa'iideystaan wixii tale iyo tusaale ah ama aaraadaada ah fadlan ha ka labalabayn in aad nagula wadaagto dhinaca comments-ka aad ayaad u mahadsantihiin